nabadgelyo saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamij wareedkeena xilligan qodobada aan idii haynana waxa ugu waaweyn Cabdi Saciid Muuse wasiirkii hore ee arrimaha dibadda dawladda federaalka Soomaaliya oo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kula taliyay inuu xilka ka xayuubiyo wasiirka diinta iyo qaafta xukuumadda Soomaaliya Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo uu sheegay in uu la yimid habdhaqankii uu la joogi jiray xilligii uu ka tirsanaa dagaalyahanada Al-Shabaab wasiirku sidoo kale waxa uu sheegay wali inuu aaminsan yahay aragtida in xilligan dadka la maquulin karo waxa uu ka dalbaday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud in uu xilka ka qaado wasiirka diinta iyo qaafta xukuumadda Soomaaliya Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur weerarka ka dhax qaraxay iyo dagaalka cusub ee ka soo cusboonaaday damul jadiid iyo nabad iyo nolol ayaan idin soo gudbin doonaa siyaasiyiin kale oo ka hadlay hadalka ka soo yeeray dhawaan wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse Cali waxaan idin soo gudbin doonaa macluumaad ku saabsan dagaalka Roobo iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya xogaha kalena waxa ka mid noqonaya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hogaamiyihii maylka adka ergeyga gaarka ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha waxa uu weerar toos ah ku qaaday agaasimaha hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad isagoo uu ku eedeeyay in uu gudan waayay waajibaadkii loo igmaday sidoo kalena uu xakameyn waayay amniga magaalada Muqdisho markii laga soo tago amniga guud ee dalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame waxa uu hadalkani dhawaan ka sheegay magaalada Muqdisho isagoo oo sheegay in saraakiisha xoogga dalka iyo kuwa u qaabilsan dawladda Soomaaliya amniga magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ay gudan waayeen waajibaadkii loo igmaday macluumaad ku saabsan xogtaasi ayaan idin soo gudbin doonaa iyo dagaalo qaraar oo ka dhacay gobolka Galgaduud kuwa oo Al-Shabaab looga saaray deegaano muhiim u ah oo ay maamulayeen 15 sano ee la soo dhaafay qodobadani iyo kuwa kale ayaan qaybtaan ku faaqidi doonaa hadduu Rabbi idmo saaxiibada qiimaha badano balse aynu ku bilaabno wasiirkii hore ee arrimaha dibadda dawladda Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse Cali waxa uu sharci daro ku tilmaamay amara dhawaan ka soo baxay wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya waxa uu ku eedeeyay Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur in uu wali wado go'aano adag iyo sidoo kale amar ku taagleen uu ku sameeyo nidaamka iyo sidoo kale awoodda uu isticmaalayo wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta uu hogaamiyo Mukhtaar Roobo Cali ayaa 6 bishan mamnuucday adeegsiga magaca Al-Shabaab taasi bedelkeedana loogu yeeri doono magaca qawaariij qoraal uu soo saaray wasiir Cabdi Saciid ayuu ku sheegay in dhaqanka caburinta magac bixinta aan saxda ahayn iyo xornimo la'aanta ay yihiin habdhaqan lagu yaqaanay dagaalyahanada Al-Shabaab waxa uu sidoo kale intaasi ku daray in uu wali aaminsan yahay in uu ka mid yahay dagaalyahanada Al-Shabaab isagoo oo sheegay in aragti ahaan wali uu ka midaysan yihiin hogaamiyaashii hore ee hore u soo hogaamiyay sida Xasan Daahir Aweys waxa uu sidoo kale wasiirku intaa ku daray in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ka dalbanayo in uu xilka ka qaado wasiirka diinta iyo qaafta dawladda Soomaaliya isagoo sheegay in dhawaanahanba uu xafiiskiisa ka eriyay dhalinyaro ka shaqeynaysa wasaaradda in muddo waxa uu sidoo kale sheegay dhalinyaradaasi in uu ka shakiyay sidoo kalena uu ku tuhmayo inay dhammaanba la shaqeynayaan dagaalyahanada Al-Shabaab Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur muddooyinkii la soo dhaafay waxa uu dagaal afka kula jiro dagaalyahanada Al-Shabaab isagoo oo goobo fagaaraha ka sheegay in uu weerar toos ah ku qaadi doono dagaalyahanadani ay saaxiibada ku ahayeen aragtida uuna sheegay in dhawaanahanba uu gaari doono deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ah deegaanada uu isagu qudhiisa ka soo jeedo go'aanada wasaaradda diinta ayaa lagu tilmaamay in ay yihiin waxba kama jiraan maadaama ay sharci dare yihiin magaca kooxda Mukhtaar Roobo ka tirsanaan jiray waa Al-Shabaab ee la qabsay ayuu yiri wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdi Saciid Muuse Cali oo sidoo kale ugu dambeyn madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ka dalbaday in uu xilka ka xayuubiyo wasiirka Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur hogaamiyaha maylka adag ergeyga gaarka ee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u qaabilsan arrimaha gurmadka abaaraha Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo dagaal lama filaan ah ku qaaday agaasimaha hay'adda nabadgelyada sirdoonka qaranka Mahad Maxamed Salaad dhawaan ayuu ku soo laabtay magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame isagoo oo ku eedeeyay agaasimaha NISA Mahad Maxamed Salaad in uu gudan waayay waajibaadkii loo igmaday ee ahaa in uu mas'uul ka yahay amniga dalka iyo sidoo kale midka caasimadda Muqdisho waxa uu ku eedeeyay inuu xakameyn waayay amniga caasimadda sidoo kalena
uu siyaasadii ku dhaxmilmay waxa uu sidoo kale sheegay in la doonayo Mahad Maxamed Salaad inuu hay'adaasi gacan bira ku qabto sidoo kalena amniga magaalada Muqdishona uu meel sare gaarsiiyo waxa uu sidoo kale ku eedeeyay in bar controlada magaalada Muqdisho laga soo galo laga soo deeyo gawaarida lagu qarxiyo goobaha muhiimka u ah magaalada Muqdisho waxa uu sidoo kale sheegay in laamaha amniga magaalada Muqdisho iyagu qudhoodu ay mas'uul ka yihiin wixii ka dhaca magaalada tani Muqdisho waxa uu sidoo kale saraakiisha ku eedeeyay in ay u wajahayaan qaababkii aan loo wanaagsaneyn sidoo kalena ay iska baashaalayaan hoteelada waaweyn ee magaalada Muqdisho kolkii laga doonayay in ay sugaan amniga caasimadda oo in ka badan 3 milyan ay ku nool yihiin waxa uu sidoo kale hogaamiyahan uu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu arrintan la doonayo inuu ka fiirsado sidoo kalena dadka uu soo xulanayo amniga waaweyn ee dalka Soomaaliya la doonayo in aragti dheer uu lahaado balse waxa uu sidoo kale sheegay in hay'adda NISA isbedel weyn lagu sameeyay tan iyo markii ay meesha ka baxeen hogaankii hore ee Soomaaliya waa nabad iyo nolol waxa uu sidoo kale xusay hogaamiyahani in Mahad Maxamed Salaad meel la taaban karo uu soo gaarsiiyay hay'adani balse laga doonayo inuu inta ka sii dhameystiro sidoo kalena uu meel ka wanaagsan meesha hadda ay joogto hay'adda tani la gaarsiiyo ugu dambeyntii haddii aynu eegno dagaalo qaraar ayaa waxay ka dhaceen deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud kuwaasi oo dhaxmaray ciidamada dawladda oo kaashanaya kuwa deegaanka iyo al-shabaab dagaaladii ugu dambeeyay ee gobolkaasi ka dhacay waxaa la soo warinayaa in ay u dhaxeeyeen ciidamada huwanta ee beesha Mursada iyo dagaalyahanada al-shabaab kuwaasi oo beeshani ay kula wareegeen deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud waxaa la soo warinayaa dagaaladaasi inuu khasaare kala duwan ka soo kala gaaray dhinacyadii ku dagaalamay deegaanadaasi balse haatan xog rasmi ah laga haynin balse wararku ay tibaaxayaan in deegaano dhowr ah ay la wareegeen ciidamada beesha Mursada oo kaashanaya kuwa dawladda Soomaaliya saraakiisha hogaaminaysa ciidamadani waxay sheegeen in ay ku wajahan yihiin deegaanada dhaca gobolka Galgaduud sidoo kalena deegaanada u dhow degmada Ceelbuur ee gobolkaasi waxay sheegeen in ujeedkoodu yahay inay xoreeyaan deegaanada beesha ay ka degto gobolka Galgaduud kuwaasi oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay maamulayeen dagaalyahanada al-shabaab xildhibaan ka tirsan golaha shacabka ayaa ka qayb qaadanaya howlgalladan ay sameynayaan ciidamada dawladda iyo beelaha dega gobolka waa Galgaduud sidoo kale xildhibaanadan waxay sheegeen in ay qorsheynayaan in ciidamada inta ay ka sii badiyaan sidoo kalena maalmaha lagu soo aadanna ciidamo ay ka soo bixi doonaan magaalooyinka waaweyn ee Muqdisho iyo Dhuusamareeb kuwaasi oo la doonayo in qudhoodu ay qayb ka noqdaan dagaalada lagula jiro al-shabaab oo looga xoreynayo deegaanada ay ka degto beesha gobolka Galgaduud gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jayte Cusmaan oo ku sugan magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in dagaalka ay kula jiraan dagaalyahanada al-shabaab uu yahay mid rasmi ah sidoo kalena ay guulo waaweyn ka gaareen ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka ee loo yaqaan macawisleyda ayna sidoo kale ay sii wadi doonaan dagaalada waxa uu sidoo kale sheegay in deegaanadii ugu badnaa abid ay ka qabsadeen dagaalyahanadani sidoo kalena meelaha ugu harsan gobolkaasi ay ka joogaan ay kala wareegi doonaan dhawaanaha nagu soo aadan waxa sidoo kale sheegay gudoomiyaha isagoo ku sugan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya in uu doonayo in deegaanadaasi la geeyo ciidamo aad u tiro badan iyo hub iyo saanad ciidan waxa uu sheegay in ay ciidamadaasi yihiin kuwa geesiyaal ah aanan la niyad jabanin balse waxay u baahan yihiin iyo hooba la gaarsiiyo wararkii ugu dambeeyay qubnaha xilligan wanaagta